Assalaamu calaykum. Todoba nooc dadka ka mid ah ka fogow. Maanta waxaan doonayaa halkaan inaan kugu soo gudbiyo todoba nooc dadka ka mid ah kuwa lagaaga baahan yahay inaad ka fogaato. Aad doonayso inaad guulaysato aadna horumar gaarto, waa inaad ka dheeraataa todobada nooc dadka ka mid ah kuwaas oo ka hor istaagaya inaad wajahdo caqabadaha nolosha ka hor imaanaya hoosna ku dhigaya mar walba. Qofka koowaad, qofka xanta badan. Qofka xanta badan waa kan mar walba ka sheekeeya dadka kale. haddii aad saaxiib la tahay ama aad la sheekaysato ka dheero, maxaa yeelay xantu waa shay xaaraan ah. In laga sheekeeyo dad kalena wax faa'iido ku jira ma lahan, oo waayo waxaad cunaysaa hilibka walaalka. Inta badan waxaa lagu xantu inay u badan yihiin dumarka, balse rag iyo dumar ma kala lahan oo intaba dadku way xantaan. Qofka labaad waa kan waqti dhumiyaha. Qofka labaad ee loo baahan yahay inaad ka dheeraato haddii aad doonayso inaad horumarka gaarto adduunka waa kan mar walba jecel inuu waqtigu dhumiyo, adigana kugu dhiirigelinaya inaad waqtigaaga dhumisid. Tusaale waa uu ku soo wacayaa, waxa uu ku leeyahay in kan waqtigaan soo dhumine. Haddaba kaa oo kale haddii aad saaxiib la tahay ka dheerow, ma uu istaahilo wax saaxiib laga dhigto. Mar walba u adeegso ereyga maya, oo haddii uu ku yidhaahdana kana waqtigu soo dhumane ku dheh ma doonayo maanta, ma bixi karo ama ma baxayo waqtigii, ma doonayo inaan soo dhumiyo. Qofka saddexaad, cudurdaar badanaha. Qofka saddexaad ee la doonayo inaad ka dheeraato haddii aad doonayso inaad horumar gaarto waa kan mar walba cudurdaar badanaha. Cudurdaar badanuhu waa kan mar walba baahan, kan mar walba daalan, kan mar walba caajisan oo aan waxba qabsanayn, mar walbana cudurdaar sameynayo ka dhacsan nolosha. Haddaba ka dheerow waxa ku qabadsiinaya cudurdaarka isaga haysta. Soomaaliduna waxay tiraahdaa saddex waa la isku nacaa: baahi badan, baryo badan iyo bugto badan. Haddaba ha isku noqon saddexdan midkood. Qofka afaraad ee la doonaya inaad ka dheeraato waa dadka aqoon la'aantu hayso. Marka aan leeyahay dadka aqoon la'aantu hayso kale ma aan jeedo dadkaan waxba baran, balse waxaan kala jeedaa dadka iyaga wax yaqaana balse aan fahansanayn nolosha. Waxaa jira dad aad iyo aad aqoon badan leh kana roon kan waxba baran, balse waxba isu tareen aqoontiisa. Maxaa yeelay isla weyn, dad kibir badan, dad aan ixtiraam lahayn iyo dad yasid badan. Haddaba ka dheeraw dadka, waayo waa ay ka liitaan kan waxba baran, bal waxaba ka roon kan jaahilka. Qofka shanaad ee la doonaya inaad ka dheeraato waa hayin raaca. Hayin raaca waa qofka mar walba iska raaca wax walba oo loo soo jeediyo, tala keen aan ahayn, wax fikrad ahna aysan ku jirin. Dadku ma jeclo qofka saan ah, maxaa ku soo kordhinaya malahan, oo haddii aad tala u keensato wax tala uu ku siinayo malahan. Mar walba waxa uu raacaa talooyinka dadka kale oo kaliya, waa sugu waxba lama yimaado adigoo aysan kaan ahayn wax diidid. Waxyaabaha qaar oo qofku ku soo jeediyo waa inaad ku diidaa, taa beddelkeedana la timaadaa fikir. Maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in fikradaada ay ka wanaagsanaato tan qofka kale. Marka ha noqonin hayin raac, iska ilaali qof hayin raaca oo saaxiib ha ka dhigan, waayo qof walba saaxiibkiisu uu yahay isna waa yahay. Haddii aad saaxiib la tahay qof hayin raaca, adiguna waa tahay ee ka dheeraaw. Qofka lixaad waa danaysta. Danaystu waa kan mar walba fiiriya dantiisa oo kaliya, oo aan ogoleen wax wada qaybsi, dadka kalena aan waxba u ogoleen. Waa mid ka mid ah noocyada dadka ugu xun, mana istaahilo saaxiib wax laga dhigta xitaa lala sheekaysto. Istinimadu waxay qofka ku keentaa inay dadka ka fogaadaan kana cararaan oo aysan xitaa la sheekaysan. Qofka toddobaad waa kan ugu dambeeya oo la doonayo inaad ka fogaato haddii aad doonayso inaad horumar gaarto waa sirmahaye. Marka aan leeyahay sirmahaye, waxaan kala jeedaa qofka aan ammaanayn oo aan xafidin siraha ay u dhiibtaan dadka kale. Haddii aad tahay qof aan ammaanayn siraha dadka kale ay ku dhiibtaan, haddaba waxaad tahay qof sirmahayaha oo sir khiyaano ah, oo qofku wuxuu ku dhibtay khiyaanay qof kale nagu gudbiyey. Haddii aad saaxiib la tahana, fadlan ka dheerow qofka oo kale, adigana ha noqonin. Qofka hadduu sirta ku dhiibto waa inaad u ammaanaydaa. Qofka sirta dhiibanayana waxaan leeyahay mar walba qofka sirta u dhiibanayso ku xafidayso iska fiiri ma yahay, iska control qof sir loo dhiiba karo. Maxaa yeelay qofka sirahaaga haya waa qof dhimbil dab ah aad u dhiibatay, kabacdina aad tiri igu gub ama iga dheeray. Haddii qofkaas uu ammaanay waayo dhimbilshaas dabka ah ee aad u dhiibatay ee uu dad kale u sheego, waxay la mid tahay adigoo qof u dhiibtay dhimbil daba kabacdina yiri igu gub. Balse haddii aad u dhiibato qof ku ammaanaynaya dhimbilshaas dabka ama ka dheereynaya,
waxay la mid tahay adigoo iska fogaya dhimbil dab ah kuna xafiday meel wanaagsan. haddaba ka dheerow qofka sirmahayaha ah oo aadka warka kala gudbiya, sirtaad u dhiibato qof kale u gudbiya, mana wanaagsana. adigana inaad noqoto qof sirmahayaan aad u dhiibato, mar walbana aad ka foojignaato, qof walbana aad sirtaada u dhiiban, qof walbana aad aaminin, qof walbana aad ka shakin. waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iideen. wasalaamu calaykum waraxmatullahi